السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan idiin wadnaa muuqaal ku saabsan sida loo sameeyo thumbnail waxaa la yiraahdaa sawirka iyo qoraalka yar ee ka soo muuqdo muuqaalka aanan ku jirin ku soo dhawaada muuqaalka haddii aad u baahan tahay in aad samaysatid thumbnail aad iyo aad u qurux badan waxaad u baahan tahay application-ka la yiraahdo Pixlr waxaan soo dhigi doonaa description-ka ama waxaad kala soo degi kartaa Play Store. Pixlr website-tan ay kugu soo furmayaa iskan waa iska daladaysaa marka iska daladid waxaad tagaysaa saddexdaas dhibcood marka aad tagtid saddexdaas dhibcood waxaad ka dooranaysaa halkan ayaa ka dooranaysaa kadib falaartaas yar ayaa taabaysaa kadib YouTube thumbnail ayaad ka dooranaysaa YouTube thumbnail markaad ka dirto okay ayaa leedahay oo ujeedaa background inuu soo yaraaday kadib plastas yar ayaa taabanaysaa plastas yar markaad taabatid text ayaa leedahay marka halkan text oo kuu soo dhigo qalinka yar ayaa taabanaysaa kadib waad tirtiraysaa waxaad qoranaysaa waxa aad rabtay haddana waxaan qorayaa sida loo sameeyo YouTube thumbnail ayaan qorayaa thumbnail gadaal ayaan ugu soo darayaa halkan waxaad taabanaysaa si aad usoo weyneydid halkan aan kusoo dhaweeyay TT-da iskor saaran kadib intaa hirta ayaa la ekaysanaysaa halkan kadib waxaad soo bedelaysaa far qurxoon si ay kugu soo noqoto farta ayaad bedelaysaa hadda intan ayaa saaranayaa waa ujeedii inuu qurxoonaatay dana kalarka ayaan soo bedelaynaa kalarka YouTube keliya aan kalarka ka bedelaa tan ayaan ka dhigaa ay saarta ayaa ka dhigi kartaa kadib text ayaa leedahay haddana waxaa qoray wixii kala arabtid hadda aniga thumbnail ayaan qoranayaa si ay iskugu kala raacsanaato thumbnail kadib waxaa leedahay okay markaad qortid kadib hadda TT-da meesha aad ayaan tegaynaa waa soo weyneeynaa hadda farta ayaan kasoo bedelaynaa si ay u qurxoonaato faraha mid ay rabto ayaa saaran kartaa bas hadda tan ayaan saaran aniga yareeyo iga weynaatay kalarka ayaa ka bedelayaa hadda kalarka jaalle ayaan kasoo dhigayaa kadib haddana hadda waxaan soo gelinaynaa sawirkii oo Pixlr ayaan soo gelinaynaa si aad sawirka usoo gelid waxaad taabanaysaa calaamada balaastirta kadibna form gallery ayaad leedahay gallerygaada ayaa tegaysaa markaa gallerygaada tagtid kadib waxaad tegaysaa qaanada uu kugu jiray sawirka aapka hadda sawirka aapka waa kan tan saas soo yareysan kartaa inta rabta ee la soo ekaysan kartaa kadib waa yareynaysaa si uu meesha u deeqo saas ayaa u yareynaysaa kadib marka meesha la ekaado ayaad dhigaysaa wax yar weyneeyo markaas ayuu ila ekaaday kadib hadda tegiskan waxaan ku qorayaa
sida loo sameeyo YouTube thumbnail sida u fudud ayaan ku qoranayaa sida ugu fudud aad saarti ayaa u qoran kartaa. waxaan rajeynaynaa saas ka qurux badan inaad u sameyso doontiin insha Allah. okay ayaa leedahay kadib tii ay tagaysaa waa soo weyneynaysaa kaasaan soo weynaysid kadib hadda farta ayaan kasoo bedelaynaa okay hadda waxaan kasoo bedelaynaa kalarka ay saaran tahay kalarka ayaan qurxinaynaa waa uga leexaynaa kalarka sida cadaanka ayaan uga leexaynaa kalarka backgroundka inaan kalarka bedelno ayaan rabnaa saas ayay uga bedelaysaa. hadda mid qurxoon ayaan saaro u jeedin si aad u seefatid marka waxaad tagaysaa halkaas PNG ayaa halkan ka dhiganaysaa inaad PNG ka dhigtaa fiican kadib save to gallery ayaa leedahay kale halkan ayaa ka save kartaa qaybta hoose ayaa taabanaysa marka aad taabto qaybta hoose halkan PNG ayaa sidoo kale ka dhigaysaa marka aad ka dhigatid save to gallery ayaa leedahay sidoo kale